kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada channelka martida iyo maaweelada garaad koriye ma isweydiinaysaa sababta ay naylahan u gabanayaan midaba meel isugu qarinayso iyo sababta guriga ay joogeen uu burbursanaa maxayse tahay dacawadan dambaska marsatay haddaad doonayso in sheekada tanaad ka bogato kusoo dhawow channelka martida iyo maaweelada ee garaad koriye ase ku bilaabo waxa la yidhi beri hore laxduuq ah ayaa 7 naylood guri ku haysatay waxay ku noolaayeen deegaan iyo dhul barwaaqo ah waxaase ku hareeraysnaa cadow badan oo noloshooda khatar ku hayay waxay laxdani awlaadda iyo naylahay dhashay ku barbaarin jirtay sidii cadowgooda isaga jiri lahaayeen habeen iyo maalin ayay gaadhka hayn jirtay waxaanay doonaysay inay ku sinto marxalad ay noloshooda kelidood mas-uul ka noqdaan waxay muddaba gaadh ka hayso maalin dambe ayay ku qasbanaatay inay carruurteeda kaga tagto guriga waxay ku tidhi cunno ayaan kaymaha inoogu doonayaa idinkuna halkan ayaa sii joogaysaan guriga hoosta ayaa ka xidhanaysaan cidna kama furaysaan waxay iska jirtaan oon idinka digaya dacwada dadcunka ah waan hubaa oo way idiin iman doontaa weliba waxay iska dhigi doontaa inaan aniga ahay haddiise aad maskaxdiina si fiican u adeegsataan waan hubaa in hooyadiin iyo dacwada ah kala garan kartaan ogaada hooyadiin ma laha luga madow iyo miciyo toona waxaa sidoo kale ogaataan inaanay hooyadiin iyo dacwadu isku hadal iyo cod toona lahayn dacwadu waxay leedahay cod weyn oo nasaqan oo markiiba aad garan doontaan inuusan kayga ahayn haddiise shaki badani idinka galo waxaa eegtaan raafka amba lugta dacwada oo daaqadda naga tusdhe lugteedu waa tun madow tayduna waa xadaan oo waa arkaysaan dardaaran dhir kadib waxay aaday duurka si ay carruurteeda cunno ugu doonto iyaguna waxay yidhaahdeen amarkaaga ayaan fulinaynaa hooyo marnaba kuma khaldami doono dacwada albaabkana kama furayno kadib markay dardaaran iyo ballan kala qaateen ayay laxdi bannaanka aadeen siday ubadkeeda cunno ugu doonto dacawaduna weyba maqlaysay oo kama fogeyn markiiba iyada oo gaatamaysa iskana dhigaysa laxdi ayay albaabka ku soo garaacday balse waxay ku hadashay cod weyn waxay ku yidhaahdeen waa ayo waxay tidhi waxaanahay hooyadiin waxay ku yidhaahdeen hooyadayo ma tihid waad og tahay oo codka weyn hooyadayo male waxaa tahay dacawadii oo doonaysa inay hooyadii isugu eekaysiiso waan ku fahanay iska tag markay aragtay inay shirqoolkeedii ku fashilantay ayay mar kale ka fikirtay sidii codkeeda wax uga bedeli lahayd waxa markiiba maskaxdeeda ku soo dhacay haddii aad tabaashir badan liqdo aad cunto in codkaagu isbedelayo kadibna bogas tabaashir ayay soo liqday markiina codkeeda ayaa noqday ku daxiina oo isbedelay una ekaaday codkii ay lahayd laxdu mar kale ayay ku soo noqotay oo ku soo garaacday albaabka waxay ku tidhi waa aniga waa hooyadiin codku wuxuuba ula ekaaday kuwii hooyadood balse waxay xasuustaan dardaarankii labaadii hooyadeed oo ahaa haddii aad codkeeda ka shakidaan waxaad ku tidhaahdaa gacantaada na tus waxay ku yidhaahdeen kuma garan karno saan mar kale ugu hubino inaad hooyadaya tahay waxaadna tustaa gacanta markay gacantii madoobeed soo taagtay ayay markiiba fashilantay waxay ku yidhaahdeen hooyadaya ma laha gacantan madow waxaa tahay dacawo waxaad doonaysa inaadna cunto waanu ku fahanay iska teg mar kale ayay haddana fikirtay markay aragtay in shirqoolkeedii mar kale fashilmay waxay ka fikirtay sidii ay mar kale khidad kale u degilayd waxaana maskaxdeeda ku soo dhacay ninka rootida gaday ee moofada leh way u timi waxay ku tidhi waxaan doonayaa inaad daqiiqii mariso gacantayda oo aad caddayso
markiiba wuu fahmay ninka muufada haystay in dacawadan dadcunkii ay maagan tahay sharqool iyo dhagar ay cid ku halligayso, waanu u diiday inuu sidaa u sameeyo, balse waxay ugu hanjabtay haddii uu taas diido inay ku qasbanaanayso inay isaga cunto oo aysan haysan wax kalay maanta cunto. intuu naftiisa u baqay ayuu isaguna gacmaha u mariyey daqiiqdii u haystay. mar kale ayay ku soo garaacday daaqadda, ayayna markii isla heshay codkeeda saafiga ah iyo gacanteeda cad ayay albaabka ku soo garaacday, iyana way ku dagmeenoo hooyadooda ayay ula eekaatay. markiis ay arkeen ayaa mid walba nafta meel kula cararay, midba meel ayuu isku qariyey. markay guriga soo geshina waxay iska tuurtay dambaskii ay gacanta soo marsatay. naylihii oo naftu hayso ayaa mid sariir hoos galay, mid kale kabadh galay, midba meel isku qariyey halkii uu noloshiisa ku dhuuman kareeyey. kan ugu yar oo hakan isagoo ugu fududu naftu haysay ayaa ku dhuuntay kabadh ay ku hoos dhisan tahay saacad weyn oo gidaarka ku taalla. dacawadoo haytu dadcun ah, haddana weliba caan ka ah deegaanka. waqti badanba kuma qaadan intay naylihii wada helaysay. mid walba bartuu ku jiray ayay ugu tagtay oo ku cuntay. waxayse heli weyday oo ka badbaaday kan kii ugu yaraa oo ay weyday halkuu ku jiro. 6dii kale ayay cuntay. markay bannaanka u soo baxdayna dhereg dartii ayay socon kari weyday. waxay sidhi way ku tashatay inta dherigu ka jabayo inay geed hoosti yara seexato. halkaas ayay jiifsatay, kadibna hurdo ayaa la tegtay, weyba isilowday. laxdii oo adeeg badan soo iibisay, carruurteedana ku soo socota ayaa gurigii kadinka ka soo gashay, balse markiiba waxay aragtay in ubadkeedii maanta la halaagay oo waxba aysan ka joogin. dhammaan ayay kolba mid ugu yeedhay iyadoo gariiraysa. mid kasta ayay magaciisa ku dhawaaqday, cidina ma hadal. markii ugu dambaysay ee xaaladdu meel dambe maraysana waxay ku dhawaaqday magaca kii ugu yaraa ubadkiisa. markuu maqlay in qofka magaciisa garanaya ay tahay hooyadii oo keliya ayuu ka hoos hadlay saacadda. waxuu idhi halkan ayaan hooyo ku jira, walaalahay socdee. dhammaantood way cuntay oo waxay soo marsatay daqiiq, codkana way soo bedelatay. kadibna adiga ayaan ku moodnay. maalintaas ayaa gabal baas u dhacay laxda. waxay halkaas ku weyday 6 ka mida 7deeda carruurtaha ay sanadada badan barbaarinaysay. waxaana u caddaatay in ubadkeedu ay ku dhaceen shirqoolkii ay dacwadu la maaganayd. balse waqti aan fogeynba waxay meel durugsan ka maqashay khurada dacawadii oo geed hoos jifta. haddii isa soo hortaagtayna waxayba aragtay caloosha dacwada oo wax noole ka dhaqdhaqaaqayaan, kolba dhan u ordayaan oo rafanayaan. waxay ka dalbatay kii ugu yaraayee ubadkeeda ka soo hadhay inuu u keeno maqas, muxaadh iyo dun. kadibna dacawadii oo weli hurda daran ku jirta ayay caloosha ka jeexday, waxaana mid uga soo baxay naylihii. markay dhammaantood nabadqab ku soo baxeen waxay ka dalbatay inay dhagxaan u keenaan. kadibna mid kasta dhagax ayuu soo qaaday. halkii ay 6 naylood ka soo baxeen ayay 7 dhagax ugu riday. muddo kadib ayaa dacawadii oo haraad badani hayaa toostay. waxay tidhi waa sidee, dhayle iyo hilib jilicsan ayaaban cunay, haddana haraad ayaan dhaqaaqi kari la'ay, maxaa khaldan? hare markay u socotay ayay sanqadha maqashay caloosheeda ka yeedhaysa. waxay tidhi waxaabad mudda 7, sawnigii 6 naylood oo keliya cunay, caloosheeda ayay ku dhex tarmeen oy 7 ku noqdeen. iyadoo isla hadlaysa oo garan la meesha xisaabta 7 ka soo korodhay iyo waxa isbedelay, ayaa haraad badan bahayay ceel biyo ku jiraan bay dul timi. intii si tartiiba ugu foorarsatay ayay doontay inay ka cabto, balse dhagxaanta ayaa hara u jiitay oo ceelkii ayay madaxa kula dhacday. halkaas ayayna dacawa ku dhimatay. tan iyo maalinta laga bilaabana laxdii caqliga badnayd iyo 7dii naylood ay dhasheen waxay u dabaaldegeen guusha ay ka gaadheen inay deegaankooda ka xoreeyaan dacawadii dilaaga ahaa. tan iyo maantana hadday nool yihiin waxay ku nool yihiin nolol wacan, amni iyo ammaano cidina aysan dhibayn. sheekada tanna waxaan ka baranaynaa muhiimadda ay nolosheenna u leedahay maqalka dardaaranka waalidkeen. intaynu tan iyo 7 dambe ku kulmayno sheekada tan ku xigta, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. waqtigu ha idin wacnaado.